السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتنا الكيني مام شرف ويدله سو دواada meel kastoo dunida daafeed ka joogtiin asxaabteeda qaaliga ah. maanta waxaan idii hayaa aroosan ka imaaday. maanta make upkayga baxay ma jeedin aroosan ka imaadano. marka maadaama aan aroos ka imaaday barnaamijkan sidaan rabaa inaan ku duubo walaalay qaaliga ah waa mahadsantiin. like-ka iyo share-ka waa xagiina yaan leega hagran. waxaan rabaa iyo subscribe-ka inaad ii saartiin waa iga codsi walaalahayga qaaliga ah. maantana waxaan ka sheekeynaynaa oo mar walbaba aan ka hadli jirnay maanta dhanka dabeecadda ay ka shidan tahay. dabeecaddaan rabnaa inaan ka hadalno. dabeecaddu waa shay qaaliya. ilaahay qofka bilaadankaa ku manaystay, qofka ilaahay siiyey alxamdulilah shukri. hadda waa wax aan la heli karin. marka walaalahayga qaaliga ah waxaa jirto ruux bilaadanka hadduusa dabeecad lahayn wax walbo hataa dabeecaddiisa wax walba hataa dhaafinayso. wax walbo dabeecaddiisa dhaafinayso. waxaa dhacday waxaa jirtay gabar dariskeena ah. gabadha dariskeena ah ninka qabo sidiis kale waa u fiican yahay. xagga dhaqanka maasha allah wuu ku fiican yahay. wax barbaleena kama taagno. laakiin sida ayada ee ii sheegtay dhanka dabeecadda waxay tiri hadduu xanaaqo ninkaas hadduu inta maanta xanaaqo ama laba eray aan isdhahno oo xanaaqo albaabka jebi, baaqulga jebi, durmuuska jebi, inta haraanti ilmaha haraanti ku dhufo, garaac, dil, dhibaato, rafaad. waxay tiri wallaahi ciyaal badanaa u haayaa oo cidna igu caawinayni maanta ma ahane. haddii ciyaalkaas aanan haylen ama aan awoodo inaan ciyaalka haysto maalin caban ka lugay lahay tiri. bis waxay gu hayaa waxay tiri ilmahayga inaan dayacmaan ama ay iga rajoogaanaan diidahay tiri. anoo teeda kaliya fiirinaayo ma ahan inaan ilmahayga dayaco aan ka tagay tiri. dabeecaddana waa shay qaaliya. ilaahay qofkuu siiyey unbaa ilaahay siiyey. qofkaan dabeecad lahayn hadda waa iska joogi karaa laakiinse dhibaato mujtamaca dhexdiisa unbaa dhibaata ka jirto. waxay ku tiri wuu haraantinayaa garaafada waa haraantinayaa, dhalada waa jibinayaa, guriga ku taalo oo ku dhegan tv-ga waa jibinayaa, wax walba waa jibinayaa. anigii yacni wuu iga xishoonayaa mehe anina sidoo alaabta u jibinaya ii jibi lahay tiri. ilowlow anigina korkayga taabo lahay tiri. habeenba lama hoydin wallaahi. ciilkii oo anaga ani markaas inta ismurno oo ani ii qaaday tiri yaa wax walba ku qarbudahay tirno. waana dabeecad la-aan asaga haysay tiri. marka waxaan kula talinayaa walaalahayga qaaliga ah qofkuu ilaahay dabeecad siiyo wuu siimaho. qofkii kaleeto dabeecaddiisa ay sida ay gabadhan ay ka sheegayso kaleeto ay tahay in oo dabeecadda ilaahaa siiyey laakiin oo mar walbo markuu xanaaqo oo wuxuu ka caroonayo oo arko kareeto inuu ka cudubileysto oo shaydaanka iska rajiimo. markaas qofku wuu dagayaa. wax walbo waxaa qasaayo shaydaanka. waa laba qof oo isdagaalayso shaydaana u horseedaayo oo leeyahay labadii kale isku sii micina labadii qof sidii isku dilaysaa waa shaydaan. ilaahu shaydaanka naga qaba cudu billahi min shaydaan rajiim. waa wax laga cudubileysto. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa caafimaad inuu ilaahayna siiyo oo ilaahay shaydaanka naga qabto oo ilaahay inta xunbo ilaahay wax xunba naga qabto. walaalahayga qaaliga waxaa dhacday marka gabadhii sidii iskaga tanisushay. waxaan ku iri haddii oo inta kale ka fiican yahay oo dabeecadda le ee tahay dabeecadda ilaahaa bixiyo. wax la iibsan karo suuq laga doonan karana ma ahan. ilaahaa sida dabeecaddaas ku siiyey. marka walaalay isaga sabar iska dulqaadan ku iri. ayadana taladeeda way qaadato way iga yeeshay. qof walbo bili-aadanna waxaan ka codsanayaa inuu isagana sidoo kaleeto oo iska tanasulo oo u sabro. haddii la isku sabro labada qof ay isku sabraan wax dhibaataa ma imaanayso asxaabteeda qaaliga ah. marka waxaan idin leeyahay ha la isku sabro, ha la isku tanasulo, wanaagga ha laga shaqeeyo, xumaatada ha la iska dhaafo si oo familkaas famil qurux badan oo ku noqdo ayaan iska codsanaa walaalahayga qaaliga ah. gabadhaasba waa ay sabartay
hooyo badan oo dhibaataysan jirto iska sabrayso ilmaheeda darteeda ku sabrayso ilaa ilmihii lama dayici karo oo ninkii naagta dii kala tagaan waxaa imaanaysa dayacadii ilmaha xagga ilmaha qof hooyo walbana waxay diidan tahay ilmaheeda inaad dayacmaan walaalahey hooyo walba waxaan ka codsanayaa inay u sabarto ilmaheeda u dhabar adeegto dhibaato walba oo imaado fiiriso ilmaheeda darteeda u dulqaadato ilmaheeda walaalahey qaaliga ilmaha waa waxaan la heli karin ilaahay bixiyo ilaahay hadduu ku siiyana in lagu ciyaaro ma aha xaqay leeyihiin xaquuqay leeyihiin intay yar yihiin dhan aday xaq ugu leeyihiin maalintay weynaadaan baa xaq u leedahay laakiin intay yar yihiin ilmo yar ay yihiin ayagaa xaq nagu leh ilmaha xaqooda waa inaan gudnaa waa inaan waajibkooda ilaalinaa waa inaan waxbarashadooda ilaalinaa waa inaan barbaaristooda si fiican u barbaarinaa si meeshaas awlaad fiican oo iga soo baxdo haddii ilmaha la dayaco wallaahi waa dhibaato marka hooyo walba waxaan kula talinayaa inaysan ilmaheeda iska dayicin in ay u tanasasho inay u dhabar adeegto inay dhexda xirato inay u dul qaadato dhib walbo oo ku yimaado hooyo walba oo Soomaaliyeed taasaan ka codsanayaa aysan ilmaheeda iska firdhin aysan ilmaheeda dayicin hadduu ninku xumaado hataa ay dhacdo inay kala tagaan hataa hooyo macaan ilmahaaga qabso hooyo macaan ilmahaaga qabso oo ilmahaaga ha dayicin oo ilmo lama heli karo dhowr kun haddaad maanta qaadatid hal cunug soo ma heli kartid haddaad heshin waxba kuuma taraayo wax walbo wixii adig jidhkaaga kasoo go-a wax kuu taraayo walaalahayga qaaliga hooyo walbo taasaan kula talinayaa aabbo walbana waxaan leeyahay aabbo adigane ha ku dayacin hooyada ilmaha oo ilmo lama hele ilmaha ha ku ciyaarin oo ilmaha xaq iyo xaquuqday kugu leeyihin aabbo adigana ha kaa helaan hooyo walbana waxaan leeyahay ilmahaaga ku far adeeg oo hooyo ilmahaaga maasha allah tarbiyeyso oo ilmahaaga gacantaada ku hayso oo ilaahay ha noo xafido meel walba wada joogaan marka waxaan idin leeyahay walaalahayga qaaliga midaas aan isku waaninaynaa oo isugu wax sheegaynaa ilmo lama helo ilmana ciyaar ma aha yaa hadeertaan waxaa adduunka magaalada kusoo badatay in ilmihii yacni keliyaha iyo beerka lagala baxaayo hataa hooyo walbo ilmahaaga ilaaliso adduunka dib u xumaaday ciyaalkii waa la wadanayaa beerkii keliyaha lagala baxayaa waa la iibsanayaa mashruuc ciyaalkaa soo baxay ilmihii yar yaraa mashruuc laga dhigtay balaaya iyo gaalaa soo degto oo ilmihii daad guraysanayso naag walba intay ilmihii xaday u geynaysaa saa dhowrkoo kun la siinayaa cunug islaameed soo xaday gees keliya iyo beerkaa lagala baxayaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim ilaahu naga qabo rabbi raxmaano qofka saas wax yeelaayo ilaahu rabbi raxmaano shaydaankaas noo soo degay oo mashruuca keliyaha iyo beerka ilmaha lagala baxaaye ilaahu naga qabo hooyo walbo ilmahaaga ilaaliso dugsiga daa u dirtid macalinka waa macalin haye ilmaha soo deertaa dheh adiga bax ka soo wado wallaahi adduunkooda sii xumaanaya dib baa loo sii xumaanaya dadku way xumaadeen adduunkani waa sii xumaanaya aakhir sabana lagu jiraa umaleynaa wallaahi ilaahu naga qabo rabbi raxmaano ilaahay oo awlaadana xafid rabbi raxmaano ilaahu shari shaydaanba naga qabo ilaahu dembigana dembi waalidkeema dhaaf ilaahu cimri dheer caafimaad kaa barin ceel suban asxaabteeda qaaliga saasaan isku ognahay waa iswaanineynaa wuxuu waawaanay naga tahay iyo inaan wax isku sheegno ilaahay dhibkaa naga qabta asxaabteeda qaaliga meel walba aad joogtiin waa idin salaamayaa haddaad ku cusub tahay janalkayga subscribe dheh laagna ii saar ii sheer garay gambaleelka taabo commentina ka bixi halaas igu saacido walaalahayga qaaliga waa idinka walaashiina idinka codsanayso intaas aniga waa kuu samey lahaa idigana ii samey waad ku mahadsantaa daawashada ay daabatay walaalkayga qaaliga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu